Okay, so arday badan waxaa jirta ay cashar ku adkaaday waana fahmi karaa React ma fududo siiba haddaadan weliga arkin React waxay tahay sida ay u shaqayso waxaas maxay yihiin weliga aadan maqlin ama aadan isku dayin waa adag tahay. So React micnaheeda waxaa waaye React waxaa loo sameeyey website waxaana sameeyey raggan la yidhaahdo React.dev haddaan tagno raggan Facebook la yidhaahdaa sameeyey sababtii u sameeyeenna waxaa waaye markii aad JavaScript wax ku sameynaysid so example aan fiirinaynaa marka let's go to code bin camal aadayna so let's log in example waxaan tusayaa sababta muhiim u tahay in React la isticmaalo tan waxaa waaye wax meel igu qoran maaha waa iska sameynaya so let's do that. Not this, we need a pen, not a project. Okay, so code bin oo kana code bin wuxuu naga caawinaa inaan HTML ka CSS ka JavaScript ka qorno annaga oonan editor ha soo furnin React reason aan ku qorayna sababta React micnaha loo muhiim u tahay. Okay, so kab soo qaad daarno inaan dhisno let's say camal wax simple ah waxaan rabnaa inaan sameyno qoraal yar oo ay ku jiro maxaa la jiro macnaha div iyo paragraph isku dhex jiro inaan sameynaa hadda HTML rabnaa inaan ku sameyno saan u sameynaa HTML ka soo meeshaan qoro ku qorina soo waxaa leedahay div ha after recording ka naga saarno meesha okay ani waa muujeedaan waxaan soo gudbinaa أنا حقيقة صارنا أنا شاشة حقيقة صارنا okay بس so tan marka waxaan intusaa sababta ay React muhiim u tahay maxaa yeelay waxa laga yaabaa qof inuu dhaho waa waxa u baranayna maxay tahay waxaan so just zero ma soo bilaabaa sheekada so intiina badan boqolkiiba 99 ardayda waa horey u soo mareen HTML CSS iyo JavaScript fiican so dib aan u yara laabanayna macnaha meesha zero dan ka soo bilaabayna qofa qoraal ii soo qoray insha Allah waan kaaga jawaabi doonaa qoraalkaas xirso so div caadi aan qoraynaa waxa garanaysaa so div paragraph yar aan gelinaynaa p tag hello okay very basic very simple okay so taas inta kasoo baxaysa waa kasaa hello so kan haddaan rabno inaan ku qorno JavaScript haddii lagu dhaho ha ku qorin maxaa la dhihi jiray HTML JavaScript ku qor haddii lagu dhaho waxaa u baahan tahay inaad marka hore aad samaysid elementiga inaad samaysid marka hore inaad div ka samaysid kabacdina aad samaysid paragraphkii kadibna isku xirtid labadooda saas u baahan kabacdina aad qoraal geliso paragraphka so haddaan rabno inaan sameyno kaa sameyno waxaan u baahanna marka hore meel aan ku xirno so divkan paragraphkan waxaan ku sameynaynaa JavaScript qof soo qaad so markaan joogno JavaScript marka selection aan sameynaa selection daartin aan samayso waa inaan variable sameyno so inta waxaan leenahay paragraph aan leenahay okay it's equal to document dot query selector aan leenahay kabacdi waxaan select gareynaynaa divkaan aan select gareynaynaa so divka meesha ku jiro so we just say div okay so divkaas waxaa waa kan waa marka meesha ku jiro query selector div so divkaan kabacdi waxaan sameynaynaa elementigan paragraphka so hadda kaba soo qaad elementigan meesha kuma jiro waa empty waa meeshan so hadda saan nahno waxa kuma jiraan haddaan rabno inaan sameyno elementiga oo paragraphka waxaan u baahanay in aan marka hore aan nahno const kaba soo qaad kan waa div sorry div kan waxaan leenahay paragraph is equal to waxaa isticmaalaynaa method la dhaho create element div p so element waxaan sameynaa la dhaho p oo paragraph ah so hadda haddii aan console log ku sameyno kan so let's do console log paragraph haddaan nahno console log soo bixino error ka buuxo so let's do clear سأنا اسكو حرتد مروان ما اسكو حرتان قولي ما نقارن بجس waxaa intusaa bas sidoo u shaqeeyo what is that document oh yeah document element document dot create element بس ما فهماyo documentigaas waxa waaye waa browser ka koro waaye waa meesha ay ku jiraan wax kasta waaye markaas waa document dhaado so soo martan intiina badan so document dot create element b so jeedid waxaan sameynay paragraph caadi aan sameynay
so hadda daan rabno inaan isku xirno labadooda inta tagina waxaan leenahay div dot yaa xasuusin karo bendi isticmaalana ama bendi jaal append child no ama append child isku mid baa labadaba kabacdi waxaan ku xireynaa paragraph hadda clear aan leenahay inta so hadda haddii aan divkan marka aan cancel gareyno waa inuu noo soo baxo paragraph iyo div isku dhex jiro inta ka soo baxo okay wakaasa divka wakaasa paragraphkana ku dhex jira soo jeed so hadda marka wixii waa haysanaa laakiin meeshan inaan ku xirno waa inta so divka inaan ku xirno waa maxaa yeelay meeshanadii waxba kama soo baxaan halkan laakiin intaanan kasoo bixinin waa inaan paragraphkan aan qoraal gelino so let's do that so yeah xasuusin kara sida qoraal loo geliyo paragraph text node isticmaalana text node yep text waxaan leenahay what was it there's a different way loo sameeyo inner html loo sameyn kartaa text waxaa sameyn kartaa text content right yaa xasuusto text content what is that text content yes so qof ay soo qorto text content ayda sameyn yep inner html la isticmaali kartaa ama inner text content right so JavaScript yeah so text content waxay ka caawinaysaa inaad gelisid qoraalka inaad gelisid so waxyaalaha ka samayna markaas aad xusuusto waa raadin kartaa Google ka raadin kartaa so inta aan gelinayna marka hello wali wixii ma soo baxayaan yaa ii sheegi kara sababta inay soo bixinin maxay inta ugu soo bixi laayeen sidoo waxa u baahanaa inaan saarno inner html inaan isticmaalno so okay so let's see error into jira so append child ananay paragraph oh okay sidoo baadiga u baahanaa difta maadaama inta dif ku sameeyay okay so div kan sameeyay paragraph kan sameeyay div ko selection ku sameeyay and then kabacdi waxaan aan qoraal gali paragraph ka maybe mas that's why spelling kan sameeyay and then waan ku xirnay so hadda inuu soo baxo waaye save it maybe waa code bin waa issue ga okay let's go to so caadi inuu soo baxay ahayd badhi ma laha muhiimadda waxaa waaye waa garanaysaan so hadda waxaan isku xirnay divka iyo paragraphka kan isku xirnay so let's say append is undownloadable no taas ka shaqeyso append mo garanaya append child paragraph maybe spelling ko waxaan qaladna no with b paragraph follow okay ba muhiimadda waxaa waaye just we know hadda waxaan ognahay waxyaalahan dhan waxay nagu qaadatay in aan ku soo bandhigno hello halkan bas right so shaqo dheer waaye so saasaa loo soo saaray react marka waxaan dhan in meesha ka bixiso react waxay sameynaysaa marka waxay leedahay haddaan dib u fiirino aan sameyno waxaan rabnaa inaan sameyno project cusub react aan sameyno so let's do mbx create react app inta waxaan leenahay review aan iska dhahno react waxay sameynaysaa marka meesha waxaan maanta dhan sameyn lahayn document.create element.document.query selector hal xabay samaysay oo hal meel ku jiro oo la dhaho id root so can actually we could have used that id gas isticmaal karna badima laha and okay haddan got the problem meesha wax ka jiro inta waa because query selector marka isticmaalso ina css ka aad u isticmaashid inta waxaan ka wadaa root but waxay sameynayaan hal elementi leeyihiin hal elementigaas yaa waxay dhan ku xiran yihiin so marka hadda aan noo dhameeyo haddaan baxno soo furno go to here week 9 review
نسو فرنو waxaan fiirinaynaa meesha public folder markaa fiirisid index.html aad fiirisid gudihiisa baadiga waxaa ku jiro hal element oo div ah root right halkaas elementigaas waxay dhan ku xiran yihiin marka so javascript-ga qoraysid oo dhan oo ku qoraysid react waxay ku jiraan rootkaasay ku jiraan id rootkaasay ku jiraan ku xiran yihiin so rootkan sidee react oo la xiran tahay source aad tegaysaa index.js aad tegaysaa waa kana inta waa soo jeed react waxyaala sameystay waxay sameystaan waxa la dhaho create root oo method ayaga sameysteena so waxaan waxay ka imaadeen react ka imaadeen laakiin wixii anaga sameynayna waa kana right kan tii anaga sameeyna xataa waxa dhigi kartaa meeshaan dhihinay query selector waxa dhigi kartaa inta get element by id kabacdina saas u gelin kartaa you don't need that to saas u gelin kartaa marka I think waxa waa code bin waa problemku laakiin saa u jeedid waxa hadda sameeyna waa kana okay so taas waa isla fahanay marka sida JavaScript looga soo baxo iyo sababta ay muhiim u tahay inaan React isticmaalno maxaa yeelay uma baahnin inaan maanta dhan sameyno document.create element document kan kaas uma baahnin just waxa u baahanahay file JavaScript kana iska isticmaalno okay wax su'aal markay taas noqoto any questions dib aan ugu laabto dadka waxyaalaha ay soo dirtiray so okay so wax su'aal let me know mahadsan tahay qofka ii soo qoro qoraalka dheer mahadsan tahay so haddii aad class ku jirtid assignment-ga definitely assignment-ga laga rabaa okay wax su'aal haddiina jirin oo qaybtaas sida ay muhiimadda ay react tahay waxaan sameynaynaa waxaan baranaynaa waxa la yiraahdo components maxay yihiin waa maxay components markii la dhaho react waxa hadda ka hadalnay waxa waa JavaScript ku dhisan tahay so waxa dhan waa JavaScript component waxa waa function waa hal function waa so components waxa waa boxyo yar camal waa mid kastana wax gooni qabanaya kaba soo qaado website-kaadi waa kana website-ka waa kana this is your website waxa leedahay sidebar waxa leedahay iyo qaybo waxa leedahay aad ku soo bandhigto qoraallo ama news-ka ama wax noqotaba okay kan waa component waa so hada waa component kan waa component sidee marka components ka loo sameeyaa mid kasta waxa u sameynaysaa file gooni u sameynaysaa okay file gooni u sameynaysaa kadibna soo bandhigaysaa mid kasta hab la isku xiriir leeyihiin marka components isku xirmayaan let me aan iska yareeyo halkan culayskiisa hab isku xirmayaan jirto oo la isku xiri karo components-ka so waxa sameyn kartaa marka component-ga kan camal yaa sii dhexgelin kartaa mid kale sii dhexgelin kartaa okay kana waxa sii dhexgelin kartaa mid kale dhowr xabaa kala qaybin kartaa kan oo soo qaad sidebar-kaada waxa ku jira waxyaalo kala duwan kana midaas sii dhexgelin kartaa kulligood waxay ku dhex jiraan website-ka ku dhex jiraan oo asagana hal component iyo weyn ah okay so ka soo qaad marka kan website-ka kore waxa waa app.js JS okay waana kana app.js tubyala kana app.js waa hal component soo jeed markaan loo component waa function waa hal function la waa okay halkan function waa ina export dhahdo oo dirtid way markasto maxaa yeelay meel kale laga isticmaalaya okay so app.js marka ayada waxa soo hoos galo marka waxaana component soo hoos galo so haddaan rabno ka soo qaad in aan sidebar-ka ka soo qaad kan waa sidebar haddaan rabno inaan dhex gelino marka hore waxaan sameynaynaa folder la yiraahdo components waxaan rabnaa marka wixii in halkaas galaan wixii components oo dhan halkaas inay galaan waxyaalaan kale oo dhan iska tirtiri karnaa uma baahnin waxaan loogadan uma baahnin setup test uma baahnin okay so clean up aan ku sameynaynaa application-ka dhan okay so haddan uma baahnin iyo testigan uma baahnin
app.js na wax ku jiro dhan aan ka tirtirinaa. Okay, so folder waxaan sameynaa la yiraahdo component. Folderkaas gudihiisa waxaan gelin karnaa haddaan rabno folder kala sii dhex gelin karnaa haddaan rabno inaad kala habaystid. So haddii kala file aan sameyn karnaa aan dhahno sidebar.js. Okay, sidebar.js waxaan u sameynaynaa wixii ku jira functionkan sameynaynaa react okay kanaan sameynaynaa kaasa. So kuwan snippets allahaas waxaa kasoo download garaysan kartaa extension waaye oo react snippet haddaad raadisid. Sidebar uu noo sameeyey waxaan tegaynaa app.js waan soo jiidanaynaa sidebarkii. Okay, soo jiidanaynaa. So habka soo jiidanaynaa waxaa waaye import aa leedahay waxaan leenahay sidebar wakaasa editorkaada hadduu ku jiro wax oo ka caawinayo uu ku sheegay haddii kale waxaa u baahanta inaad dhahday .components/sidebar meeshuu ku jiro. haddaan rabno markaa so hadda app.js kan marka waa kana saan ka hadalnay waa kan kore waaye. Sidebarkan haddaan rabno inaan gelino waxaan sameynaynaa intaan soo gelinaynaa. So let's say sidebar. That's okay. So hadda projecting haddaan bilaabno aan ku sameynay start. Midda kale dad badanaa waxay dib ka keenay markii ay projectii soo clone gareeyeen homeworkii npm install mayna dhihin. Aniga npm install inaan dhaho uma baahni hadda maxaa yeelay projectka haddaan sameeyey. Laakiin haddaa project meel kusoo jiidato sida GitHub camal waa ina npm install aad dhahdo kadibna markii kaas dhamayso npm start. Waxaan leenahay npm start uma bilaabayaa. marka qaarkood wuxuu ku leeyahay portigaad horaa loo isticmaalayaa. So waxaan leenahay mid kala bilaaw which is okay and then boom. So wakaasa. So sidebar meeshaan ku qoran si fiican laguma jeedo. waxaan sameyn karnaa sidebar aadaynaa meeshaan waxaan ka dhigaynaa meeshii tahay h2 aan ka dhigaynaa. That's a sidebar. Okay, so sidebarka marka sidebarka waa kana waa halkan component waaye. Saan tusay componentigan weyn waaye kore. kuwan gudaha ka soo qaad kan camal waxaan ka dhigaynaa comments aan ka dhigaynaa. kan waxaan ka dhigaynaa social media. kan waxaan ka dhigaynaa xayisiin ka soo qaad. So saddex component ku sii dhex jiro. saddexdaas component aan sameyn karnaa marka ayaga laftirkooda sameyn karnaa gooni oo sameyn karnaa. marka qaarkood waxaa fiican inaad hagaajistid oo samaysid folder la yiraahdo sidebar. folderkaas gudihiisa aad geliso wixii oo dhan. So let's make a folder cusub oo la dhaho sidebar. kanaan gelinaynaa meesha app.js-ka inaan saxno waa laakiin automatic uu noo saxaysaa ujeedid uu bedelay. sidebarka gudihiisa waxaan gelinaynaa file kale oo la dhaho waxaan gelinaynaa let's say comments.js. waxaan kaloo gelin karnaa haddaan rabno social media.js iyo muxuu ahaa kii kale maxaan kaloo dhahan halkan xayisiin. So waxyaalaan example waa mid kasta inaan buuxino qasa maaha xayisiin.js. Okay, so kulligood waxay soo galaan sidebar. kuwaan oo dhan ayaga dhan folder gooni aad gelin kartaa daartid kadibna soo gelin kartaa sidebarka. laakiin muhiim ma aha haddaan rabno kuwaan hadda inaan soo gelin halaan example ka qaadanayna social mediada camal. So waxaan leeyahay rcfe social media noo sameynayaa. marka rsv commandkaas dhaho micneheedu waxaa waaye command oo snippet waa. laakiin haddaan rabno inaan naga sameyno inaan dhahno import react. macala su'aal baan qabaa. macala marka component marka ka hadlaysid each macnaha component baasay kala qaadi kartaa adigoo macnaha xayisiin sameynayo xayisiin macnaha qaybo component badan sii gelin kartaa sii dhex gelin kartaa. So xayisiinta laftirkeeda mid kale sii dhex gelin kartaa halkan kaba soo qaado xarta maybe xayisiinta qayb waxay leedahay sawir iyo qayb video oo noocaas camal ay leedahay. So sii gelinaysaa mid kale sii gelinaysaa. So folder gooni oo sameyn kartaa xayisiinta daartid. So inta sidebar gudihiisa waxaa ka sameynaysaa folder kale la dhaho xayisiin. folderkaas gudihiisa waxaa gelin kartaa marka wuxuu xayisiinta ku saabsanayo dhan
qayb video u samayn kartaa directory si kala habaysan kartaa video.js so waa isdhexgelgelin kartaa so componentiga waxaad isdhex gashan kartid laakiin ogow markaan ka hadlano propska hadhowdi markaan galno waa arkaysaa sida iskugu diri jiro macnaha sababta aan waxaan isku sii dhexgelgelinayno waxay ka caawinaysaa sidee props u diraysaa propskan waan ka hadli doonaa wuxuu yahay waan sharaxi doonaa so hadda marka social media example soo qaadanay so inta waxaan leenahay function social media return social media and then export social media okay so function caadi ah waa basic function gudihiisa wuxuu soo celinaya return wuxuu leeyahay waa html soo jeeda caadi html kan waa inaad lahaatid hal wax inaad lahaatid haddaad saan dhahdo oo mid kale halkan gelino p paragraph blah blah haddaan gelino ma shaqeynayo error kusoo turaa wuxuu ku leeyahay JSX la dhahaa waxaan ma ahan html ma aha waa inay hal element oo parent ay lahaato so waa inaad kulligood dhexgeliso div camal inaad dhexgeliso so ma shaqeynayso tii kale so saas wuu ku shaqeynaya laakiin haddii laba isgarab yaala ma shaqeynayo okay so social media taasaan sameynay waxaad sii dhexgelin kartaa sidebarka so importa leedahay social media kabacdina intaa gelinaysaa marka so of course inta waxaa u baahanna inaan laba waxaan gelinayna hadda sidebara meeshaan ku qoran so inta div ay u baahan tahay intana div kala soo xirno social media aan soo gelinaynaa marka hore oo kan ah kabacdina div soo xiraayo okay so hadda daan projectiga naga fiirino waa kaasa sidebar social media waxay ku jiray waxaan u samayn karnaa let's say camal aan u samayno social mediada inta aan samayno CSS yaraan gelinaynaa CSS-ka markii la gelinaa waan ka hadli doonaa tan markii aan samaynayna stylinka waxaas CSS-ka markii reactor gelinaa saasaa loo geliyaa siba inline CSS markaa gelinaysid so inta waxaan rabaa inaan geliyo just border color ama border dheh horta marka hore let's say border width so culayska borderka u baahannahay 2 pixels iyo intan waxaan gelinaynaa border border style I think solid intana just waxaan u baahannahay border waxaa kaloo borderka la gelin jiray border with style iyo waxay u baahan tahay intaas I think okay waaye colorna waa gelin kartaa color so ma jeeda hadda borderka waa kana color gooniyan gelina marka dhahno border waxaan rabaa inaan intuso basically wax si u kala baxsan yihiin labis color aan ka dhigno green camal aan ka dhigno border qalad border color green okay aan gelin karnaa haddaan rabno maxaa la jira margin si aan banaanka uga soo jiidno margin yaraan ku dareynaa margin 30 pixels margin ku dar okay so social media oo kaasaa sidebarkin oo kaasaa social media gudihiisa waxaad sii dhexgelin kartaa darteed saas so muhiimadda waxaa waaye sidee la iskugu xirxiraa components bilaag waxaan soo gelinay wixii halkan sidebarka gudihiisa waxaa kusii dhex jiro social mediadana waatana gudaheeda waxaa kusii dhex jiro qoraalkana ku jiro isku jiraan isku xirxiran yihiin wax su'aala markay noqoto componentska sida loo sameeyo waxay yihiin iyo sida la iskugu xirxiro macal marka componentska bahalkan componentska markii la isku xirayo mid kasta oo aad samaysid you always have to go back to app.js soma yaa ii sheegi kara sababta aan ugu baahannahay app.js qasamayna app la dhan magaceeda laakiin magac kale oo dhigi kartaa laakiin sababta ugu baahannahay component oo kulli hooyo oo ah yaa ii sheegi karo app.js intay ku jirtaa intay kaloo ku jirtaa app.js kan indexka isaga waxaan u baahanahay asaga waxaan inaan guarantee guud ka dhigno si indexka u dhowda u geeyno
index.js waa meesha laga soo galo React. So index.js markaad tagtid waatana app.js. So basically waxaan leenahay document get element by ID-ga oo root-ka ah oo HTML-ka ah ku xir, waxaa ku xirtaa wax kasta oo ka imaanayo app.js ku xir. waxyaalahan kale oo React.strict mode-kan waxaan waa waxay React leedahay waaye oo ayaga hagaajisteen. React-gaana waa React-ga waxeedii oo dhan waaye sida camal isbedelka iyo wax ka dhacaya app application-ka waxaas dhan ilaalinaysaa. waxay kaloo React leedahay waxaan la dhaho React DOM oo micnaheeda ah waxay sameynaysaa copy, waxay ka sameynaysaa DOM-ka annaga aan leenahay oo kan HTML-ka caadiga. So markaan saan dhahno inspect markaa dhahdo waa kana DOM-kaadii kani copy ka sameynaysaa isbedelkiisa. So haddaa wax yar ka bedeshid React-na isbedelaysaa oo React DOM-kana isbedelaya. laakiin muhiimadda waxaa waaye app.js waxaa rabtaa ugu magacaabi kartaa app.js qasameynaya hadda waxaad dhihi kartaa fake app darteed dhihi kartaa inta laakiin waa ina export dhahdo. So export fake app index.js markaad tagtid waa inaad soo jiidato fake app intana aad geliso fake app. magaca of course app.js waaye waxaa rabtaa ku bedeli kartaa magaca darteed, laakiin habka ay React u set up galaysata waxaa waaye waxaa laga galaa app.js marka bilaawdi mar qaarku dadku way bedelaan main tan lagu bedeli karaa darteed. So app.js main aad dhihi kartaa darteed. laakiin muhiimadda waxaa u baahan hal component oo soo hoos galaan waxa kaloo dhan aad sameynaysid soo hoos galaan u baahan tahay. okay macallin marka ma dhici kartaa haddaadan isticmaalin app.js kaas kaba soo for example inaad kuwa gudahooda ma isla isticmaali kartaa like components gudihiisa isku raan garan kartaa oo kuwan gudaha aan sameynaa macnaha kuwan wax ku qori karnaa annagoo isticmaalin miya kan app.js kan macnaha the same way oo isticmaalayno app.js adigoo oo maarad comments oo kale mise xayisiin oo kale mise sidebar oo kale how isticmaal macnaha waxa ka wada ma gelin kartaa kuwa kale ma sii dhex gelin kartaa ma ka wada the same way app.js oo isticmaalaysay ha oo macnaha u gelinayno index-kan u gelinayno miya adiyad waa u samayn karnaa ha. So kaba soo qaado waxaan rabnaa inaan sidebar aan ka dhigno kan hooyada u ah kulli waxaan sameynaynaa sidebar-kana waxaan gelinaynaa index.js-ka. So waa soo jiidanaynaa marka hore sidebar waxaan kasoo jiidanaynaa meeshuu ku jiro kadibna intaa gelinaysaa. okay got it. So hadda application-ka sida caadiga u shaqeynaysaa laakiin meesha waxaa ka baxaayo app.js-ki iyo CSS-ka ku jiray. soo jeedi CSS yaraa ku jira app.js wax yaroo CSS halkaana waana kana CSS-kan waa waxaan ka baxay meesha laakiin still application way shaqeynaysaa. thank you man. No problem. Any other question? intaas component qofa iqra xitaa intaas component maxaa ugu baahanahay hal ama laba xab hadaan isticmaal karaa. yes so ma baahna waxaan components laakiin hadhow marka project weyn aan sameeyo ka soo qaad waxaa sameysay system weyn oo company u sameysay ama meel imaada shaqo oo la isticmaala React waxaa arkaysaa waxyaalo fara badan oo components oo sameysan arkaysaa. sababta tan loo sameynayo oo u sameynayna waxyaalo badan oo components maxay yeelay waxaan rabnaa mid kasto sideeda goonida in loo hagaajiyo. soo kaba soo qaad camal hebel aan ku shaqeynayaa comments-ka asa comments bisa loo deynayaa isbedel markuu ku sameeyo wixii oo CSS-keeda waxeedii wuxuu baahan bas inuu soo diro main app inuu soo diro ma baahan inuu wax ka bedelo main app. soo hadaan kaba soo qaadaan dhahno mid kale kaba soo qaad sidebar camal kaligeed haday tahay waxa u baahan tahay hadii karta hal component bisa hadii karta export default. so kaba soo qaad harna inaan gelino social media-da. so let's copy garayna social media-da ayada dhanbo copy aan leenahay sidebar tagayna meeshii aan file kala sameyn lahayn meesha hoos aan aadaynaa component kala aan sameynayna oo la dhaho maxaa la jiray social media. let's see why. okay so kan uma baahnin we don't need na soo jiidin uma baahnin kan sidebar. yeah so ujeedid hadda problem meesha wax ka jiro waxa waaye export default ma dhihi kartid inkastoo taas dhib weyn ahayn. so hal mid aad dhihi kartaa export default kan kalena waxaad dhihi kartaa export bis aad dhihi kartaa saas
marka saas dhahdo then let's see for the unexpected token okay inta issue ka jira mesh problem ka jira inta waaya dimala ESLint la waxas dimala okay so saan waa dhigi kartaa laakiin markuu qof imaado uu ku wareeraa wixii macnaha wuxuu leeyahay intuu ku dhamaado functionkan ana fiirsid waa samayn kartaa wax weyn maaha laakiin habka ay react ay bilog ay u sameeyaan waxa waa in mid kasto filekiisa goonida loo sameeyo waad gelin kartaa kan laakiin marka soo jeedinaysid social media dan meel kale ka soo jeedinaysid ma dhihi kartid ka soo qaad inta aan hadaan dhahno ma dhihi kartid sida hadda aan dhahnay so inaad dhahdid import intiina gelisid waxaan leenahay marka social media taas inaad soo jeeditid saan camal waxaa la dhahaa kan waxaa waa named export alla kana waxaa la dhahaa unnamed export named export waxaa waa macnaha waa default layer macnaha waa kan ugu sareeyo filekaas ugu muhiimsan laakiin waxaad imala hadina ku shaqo samaa muhiimadda waxaa waaye habka badanaa loo sameeyo waxaa mid kasta gooniis in loogu sameeyo file gooni ah si ay u fududaato macnaha fahankii laakiin waa isku dhex gelin kartaa qasama any question su'aal kale so miyo abuur mise kan HTML soo qabo create root cusub miyo abuura mise kan HTML soo qabana kan HTML soo qabana so dan tagna waa kana wuxuu leeyahay get element by id root kan asagoo kana element by id root okay waana ku tusi karaa markaan galno application ka inkastoo hadda naga qasan tahay so kan hagaajiye igu laabana kan siisu ku laabo kana siisu ku laabo okay kana siisan ku laabanayna waxaan ku tusaa HTML ka hadda markaan refresh dhahno sidebar not sidebar dan qaladnay yeah so kana qaldan okay so haddaan fiirno HTML ka caadiga ah halkan waxaa arkaysaa inay wax dhan ku jiraan elemental root waa kana div id root iyo wixii dhan ku jiraan waxa kale oo dhan waa iska fake aan wuxuu ku sheegaya javascript inay ku jirto browserka waxaan kalena comment waaye ka saari karnaa ma baahnin we could just remove qaybtan akasa that's it so waxaan dhan wuxuu ku jiraan oo kaasa kan waa app oo kaasa soo jeedid waa app.js ki class kan app waa kana dan tagno app.js waxaa arkaysaa class la dhaho ogooda javascript markaa ku jirto inaad dhahday class name meesha dhehaysa class app wakaasa gudaha markaan usii galno divkaas waxaa waa kii sidebar kasaan filaayo sidebar gudihiisa wax kalaa kusii dhex jiro ana waxaa weeye waa social mediadi wax su'aala markay noqoto componentska sida loo sameeyo sida la iskugu xiro waxyaalahaas React DOM render method ma la isticmaali karaa React DOM render method yes waa la isticmaali karaa so I think hadda ka hor qaakana so waxay isticmaaleen so meeshaan way kala bixiyeen actually so ma jeedid root waxay ku magacaabeen kan laakiin meesha kana dhihi lahayn meeshaan dhihi lahayn React DOM render waxaa u baahanta marka hore inaad horta aad samaysid rootki inaad soo jiidata u baahanta create root kana u baahanta kabacdi waxaa leedahay root.render laakiin react DOM render waa dhihi kartaa I think waa hore la dhihi jiray waa la bedelay so let's aan raadino kolor ay ku dambeysay react DOM render react DOM render method waxa weeye waa kana react DOM render waa kana so waa gelin kartaa waa kaasa you could put inside gudaheeda gelin kartaa wax weyn ma so let's see yeah so kan create root kan soo saaren dhawaan so create root kana wixii bedelay
So Next.js على يقولي هذا حوق حنصارنا بكس وقت بدل ما هنا so Next.js حاس مركلان كهلنا إن شاء الله لكن Next.js library لو سمي React واي so سيد React عادي وشقيا exactly the same way so هذا برتان React Next.js نوات قانون so حدث ما so هذا حوق حنصار هذا fundamentals كاي وأنا qofka duu barto fundamentalska wax kala dhan u fududaanayaan ugoda soo dad badan waxa jiro oo like waxay jecel yihiin technology ugu dambeeyay bartaan taas caadi waayo waa baran kartaa technology ugu dambeeyay laakiin horta marka hore aas-aaska iska soo dhis soo aas-aaska hadda baranayna React horta maxay tahay intee ka soo gashaa markii noqoto JavaScript marka taas barato library kasta soo baxo okay kugu noqonaya soo waxba dhib kuma keenaya hadda Next.js qatar vita jir kula dhaho oo ku bilaabay wixii waxa soo dhan waa biyo lacag amal ku noqonaan markii React app barato maxay tahay React u shaqeysaa iyo concepts ku jiro sida amal hada components aan baranayna conceptigaas ku jirtaa meel kasto so Next.js ku jirtaa meel kale ku jirtaa arrimaha props ka daabirtida hada aan baranayno waa meel kasta ku jiraan so fundamentals marka iska dhisto uma baahnid wax kale uma baahnid adiga baran kartid Next.js iyo waxyaalaha kale oo dhan okay so dib aan ugu laabano marka wax su'aala components marka noqoto maxay yihiin components kaasi u shaqeeyaan waxa soo dhan so haddii aan ku dhaho kaba soo qaad amal samee component la dhaho waxa soo gelisa app.js waxaan ka rabaa inaad si dhaqso caadi ah ku sameyn kartid so hadda note qaado haddii aadan taas garanayso loo sameeyo basically waxa waaye marka hore component-ga sameynaysa file-ka sameynaysa so folder oo components gudihiisa waxa gelinaysaa file-ka u baahneed sidebar amal ugu markasta component-ga xarafka ugu horeeya inuu capital ahaado isla siiba function-kana sidoo kale waa inuu ahaado capital xarafka ugu horeeyo marka sameeysi taas waa qasab inaad dhahdid export ama export default inaad dhahdid sidaan amal kadibna aad soo jiidato oo halkan ka soo jiidato import aa leedahay sidebar meeshuu ku jiro sidebar-ka sheegaysaa haduuna kan kuu sameyneynin oo browser haduuna editor kuu sameynin adina qortaa laga rabaa marka waxaa leedahay dot/slash markaa dhahdo waa inay kuu soo baxaan file kala duwan kabacdina // and then halkaana gelinaysaa marka saas u gelinaysaa saana isu soo xiraysaa ujeedid wax su'aala any question okay so how good been marka props ka maxayeen waa maxay props okay so waxaan sameynaynay components ka hadartina ogaatid props ku yihiin kaba soo qaad component kasta waxay leedahay information ku jiri leedahay kaba soo qaad so hadda ma amalaha macna kuwan hadda sameeyno ma lahan information ku jiro laakiin kaba soo qaad waxa rabtaa inaad wax ku jiro let's say amal waxaan sameynaynaa let's create component kala sameyno component kala sameynay waxa waaye kaba soo qaad waxay haysaa waa profile waaye so this one is a profile okay component profile waaye component gan waxa jiro oo kala ku sii dhex jiro component kale oo tusaayo sawir so this one is sawirka wuxuu u baahan yahay marka in loo soo diro sawirkii component-kan qoraan marka waxay haysataa wixii oo dhan so all data wixii loo baahnaa sida sawirkii intaan component kala jiro oo tusaayo magacii wixii so intaan la sii magac kuwan laakiin ma oga ayaga meesha laga heli lahaa wixii so haddaan rabno inaan u dirno waa inaan kasoo dirno tan kore oo component-kan kore profile-ka inaan kasoo dirno waaye so let me change the color-ka so I have to send it from here inaan u dirno inta sawirkii so waa kan marka props waa kan wax marka la diraayo waa props inta inaan ka dirno aan u dirno halkan waa props marka waa information waaye waa wax la diraayo oo meel laga soo diraayo meel kale loo diraayo midda kale props-ka haddaa inta ka samayso wax inta haddaa ka samayso let's change color-ka inta haddaa wax ka samayso oo inta data ku jirta ka soo qaad uma diri kartid meeshan kore so props-ka hal dhinacay u socdaan bis
so one way props one way hoos li aadi karaan bas korna soo aadi karaan macnaheedu waxa waa component-kan la dhaho sawir uma diri karto wax component-kan kor oo profile la dhaho uma diri karto okay so props lagu sheegayo waa information la dirayo waa haddaan inta gelino react props sawiraan soo qaadanaynaa so saan camal sawirkan camal ka soo qaad open in a new tab open a new tab okay so sawirkan camal soo jeedid kan waa component ugu sareysa waxay soo diraysaa waxa la yiraahdo color iyo size soo diraysaa waxay u soo diraysaa component-gan tan waxay haysataa saa u jeedid inta waxa ku qoran this laakiin skill of this kan waa classes waaye waxay haysataa waxa la dhaho props.color iyo props.size waxay u sii diri kartaa marka component kale u sii diri kartaa tan kale u sii diri kartaa laakiin marka dib loo laabto lama diri karo okay so dib uma laaban karaan props-ka so mustaqbalka waxaan baran doonaa hab lagu maamuli karo taas laakiin ugu props waxa waaye component-ga hadda ka soo qaad app.js sidebar wax way u diri kartaa laakiin sidebar uma soo diri karto app.js okay taas misla fahmi any question markay noqoto props-ka sidee wax u diraan props-ka hal dhinac bis wax u diri karaan component-ga sare ka soo qaatan waxa waaye waa let me actually go back iska xirno kan kana rabnaa inaan ku dul sawirno aan leenahay in page so haddaan kala garayno waa kana so kan waxa waaye waa app.js okay kana waxa waa sidebar ka soo qaad okay so saas isku diri karaan laakiin sidebar wax uma diri karto kor uma diri karto so markii kor la aado tan waa mamnuuc waa lama ogolo macnaa mamnuuc ma macquul ma xataa ma ma diri kartid ba okay so example code no waa idin siinaya so laakiin hadda waa fahanteen props-ka kan waxaa la parent component ama parent component waa waalidka kore waaye waalidka waa u diri kartaa props markay noqoto child so let's call this parent and our child okay child waa loo diri karaa wax laakiin parent looma diri karo sida camal qoyska familka waaye waalidka macnaha markaas sax maadan laakiin waalidka wax way bari karaan ilmaha laakiin ilmaha waalid wax ma bari karaan camal kab soo qaado run ma markaas laakiin macnaha example ahaan taas ka soo qaado so familka camal waalidka waxay yihiin mas'uul markay noqoto wixii wax kasto ilmahana wax bay qaadanayaan oo waalidka qaadanayaan so waxbarasho markay noqoto wax kasto laakiin waalidka ay kama sugayaan ilmaha wax macnaha macquulna maaha macnaha mas'uuliyadii wax kasto so tas isku hay okay aan marka aan example aan sameynayna yar oo fudud so instead of sidebar waxaan dhawan tirtireynaa sidebar kan tirtir waxaan sameynaynaa hal component oo la dhaho profile.js okay rcfe okay tanna waxaan soo jeedinaynaa profile-ka okay intaan profile-kan gelinaynaa okay so everything looks good refresh that now should work profile bisa ku jiro all right so hadda xarna markii aan profile-ka u dirno magac so let's say amal just waxaan sameynay magac caadi ah so let's say const name is equal to Mohammed okay information ka sarna inaan u dirno marka profile-ka darna inaan u dirno just inta la gelinaysaa marka sorry gelinaysaa component gadaashiisa gelinaysaa so xalada inta name is equal to xalada name
okay that's name is equal to name kan waa marka props lagu sheegay props waa kana sidee u heli kartaa marka kan waa waalidkii waaye waa parentigi information sidee u heli kartaa marka kan yaa iga caawin karo sidee u helnaa magacaas kasadadaan inta dhahno console log name sorry console log name ma shaqeynayso sidoo waxa u baahanaa inaa process oo soo bas gareeno componentiga and then inaad structure inaa ku sameeyaan so marka hore waxaan u baahanaa profile-kan inuu soo jiito props wax la dhaho so component kasta aad samayso JavaScript waxaan ka wadaa React gudaheeda ah waxay leedahay wax la dhaho props xataa haddii aadan soo dirin weli way leedahay so intaan props gelinaynaa propskan waxa harta u magacaabi kartaa qasamayna props la dhaho laakiin propska wuxuu taagan waa properties camal so adigoo dhahay properties adigoo dhahay camal waa saas okay properties so si aan u fududeyno sheekada inta waxaan leenahay just props inta gelinaysaa marka propska waa kana propska marka aan fiirino bal wuxuu noo keenay so hadda aan tagna inta console kan tagaynaa xal badan iska jiro meeshaan waka so name Mohammed aku jiro props lagu sheegay ta magaca u bixin kartaa kan waxa dhigta props okay kasa props name Mohammed that's it so hadda added props dot name wixii ku soo baxaya Mohammed ku soo baxaya props dot name Mohammed waa and hadda arti marka inta ka soo bandhigi kartaa so let's do that aan sameeyna marka profile kan inta waxaan leenahay h3 iska dheh profile inta my name is Mohammed okay so that's it so my name is Mohammed so hadda daarno inaan magacyo kala soo dirno oo inta ka soo dirno so my name is Mohammed like waxaan rabnaa inaan soo dirno dhowr magac oo kale inaan soo dirno waxaan samayn karnaa habab kala duwan oo loo samayn karaa mid waxa inta array ka dhigi kartaa laakiin muhiimadda waxa waaye waxaan rabnaa ka soo qaad in aan inline aan ku samayn karnaa so kana iska bixin karnaa so inta waxaan dhigi karnaa name waxaan dhigi karnaa Mohammed okay annagoo saas dhahnay markaas weli sidiis waaye sidii shaqeynaya waxaa kaloo samayn karnaa markaas profile kan laftigiisa aan copy garan karnaa mar kale example aan soo saay inta waxaan leenahay aqli inta hadahdaa faarax iska dheh okay uu copy garanayo wixii dhan wuxuu leeyahay profile kale uu sameeynayo oo la dhaho profile 1 profile 2 laakiin wuxuu bedelayaa hal wax muhiimadda aan rabo inaan ka soo qaato waxa hal wuxuu bedelayaa halka wuxuu bedelayaana waa magac bis waa soo jeed magac bedelayaa so prop kan laba jeer aan u yeernay labada magac uu kala siiyay wax su'aala markay noqoto propska wixii yihiin iyo sida loo diro okay so hadda aan sawiro macnaha dan sawiro wixii hadda aan sameynay waa kana easy so inta waxaan ku haynaa app.js functionka app.js inta waxaan ku haynaa profile-ka so profile-ka ka soo qaad waxaan ka soo qaadaa function waxaan ka soo qaadaa f inta waxa ku jiro props ama color kala ku sameeyo props so props ka waxa weeye properties ka waaye colors ka isku qasay ima laha so waa kana kan waxa weeye profile intana waa app.js waaye laakiin waxaan sameynaynaa function gudihiisa iyo waxaan ka soo dirnay waxaan u yeernay profile-ka b aan ka soo qaadanaynaa profile-ka waxaan siinay name okay waana soo xirnay so markaan saas sameynay waan soo dirnay wixii oo waxaan ka soo dirnay halkan intaan ka soo dirnay inta u dirnay waxaan soo dirnay props so then props kan waxa ku jiro marka name magaciisa ku jiro waxaan soo okay wax su'aala any question man
haddaan componentiga hadda laba component oo dhistay oo app iyo profile ah haddaan mid kale oonan labadoodan ahayn dhiso on data laakiin aan geliyo mid kale aan dhisay profile ma kusoo bandhigi karaa asaga oo kusoo bandhigi kartaa soo xarta inaad samaysid component kale kab soo qaad xarna inaan samayno let's say camal xarna inaan samayno settings xarna qofku magaciisa inaan kasoo bandhigno settingska applicationkaada so hadaanana RCFE settings ko kaasa so xarabta miya information halkan ku jiro inaad kasoo bandhigto profile profile baan kasoo bandhigo laakiin app.js aanan gelino waxba waa samayn kartaa sababtoo ah markaas waxay noqonaysaa marka profile wuxuu noqonayaa waarid wuxuu u noqonayaa settings u noqonayaa so haddii aan dhahno marka inta soo jiidataa import profile soo jiido ama waxaan ka wadaa sorry meesha xaq dhinaca kalan ka wadaa adigoo ku jiro profile waxaa soo jiidinaysaa settings ka soo jiidanaysaa settings-ka wuxuu u baahnaa u diraysaa marka so kaba soo qaad waxaan rabnaa inaan u dirno magaciina u dirnaa rabnaa kaba soo qaad settings so ama kaba soo qaad information kala rabnaa inaan u dirno inta gudaheeda gelinaysaa isagana right here markaas settings waxaa rabtaa u diri kartaa halkan so let's say waxaan rabnaa inaan u dirno age camal sanadka 20 okay say 20 labaatan kaba soo qaad da'da hadda uma baahnin marka wax kale caadi u soo baxayaa wixii ku jiray settings waxaa ku jiro no actually uma soo baxaayo yaa ii sheegi kara sababta in usoo baxaynin maanan dirin propskii so intaan u baahna inaan props dirno kadibna inaan inta ku qorno waaya inta ku qorinaa kana waxaan siinaynaa age 5 iska dheh intan waxaan soo bandhigaynaa my age is intuu yahay props.age so applicationka haddaan ku laabano waa inuu noo soo baxo agekii okaa so wuxuu leeyahay magacii wakaasa intaan waxay ku jiraan profileka settingskaana wuxuu ku jiraa qaybta settingka laakiin hadda way isku sii dhex jiraan ogow so hadda sawirkan ka qaadanayna camal waa adiga oo inta ka sameeyay settingskii bacdina waxa oo ka soo diray props u soo diray adiga oo ku jiro profile props u soo dirtay intana waa settingska okay so hadda settingska wuxuu waaridkiisa waxa waaye profile waaridkiisa waxa waaye app.js okay isla fahantaas so isku sii dhex jiraan waxa laga soo diray app.js na waa loo diri karaa settings waa loo diri karaa so kaba soo qaad magaca rabnaa inaan u dirno settings uma baahni inaan u dirno da'da so inta waxaan leenahay name is equal to props.name okay so inta haddaan tagno tan ma shaqeynayso age-ka ma shaqeynayo maxaa yeele propska magaciisa waan bedelnay waxaan ku bedelnay name so intaan dhahno waa age my other name is inaan dhahno waa magacayga kale ama just my name magacayga kale ma my name because isku mid waa magacii weli magaci wuxuu ka imaanaya halkan maxamed waa weli so haddaan fiirna laba jeer ku soo celinayo leeyahay my name is hebel okay weli muuna soo bixin let's go back age ku qoran soo jeed my name my name is Mohammed and then my name is Mohammed okay good wax su'aal kala markay noqoto propska waxay yihiin okay macallin haddii la rabo ka waran in uu function la soo diro props wata asna function oo soo diri kartaa waxa rabtaa ku soo diri kartaa propska so inta camal ka soo qaad function aan sameynay so ka soo qaad inta waxaan sameynay function yar oo noo sameynayo ka soo qaad harna change name
okay so function dhahay change name marka dhag la siiyana markii la raangareeyana soo saarayo change name kan cancel ku sameynayo actually waxaan rabnaa inaan ku sameyno soo qaad profile name no we don't want to do that inta waxaan ka dhigaynaa name is equal to Ahmed soo qaad okay so kan aan dirayna marka function ka darna inaan dirno inta inaan ka dirno marka so waxaan sameeynaa mid kale so inta waxaan leenahay change name is equal to change name okay so function kan aan dirnay so function ka aan isticmaali karnaa darno button aan u sameyn karnaa marka dhag la siiyo oo magac ku bedelayo Ahmed okay so profile daan tagana hada kan settings ka iska bixinayna example isu aha iska tirtir settings props ka hadda daan fiirina marka cancel loogaan sameynayna props ka bas dadka ku laabano settings ka aan soo jiidanay laakiin ma jiro da cancel looga fiirino waxa ujeedaa props ka waa object waaye laba waxa ku jiro function la dhaho change name iyo magaca name Maxamed ku jiro okay so hadda daaran inaan bedelno marka magaca waxaan sameyn karnaa button yar so already noo sii sameeyay so hadda dii aan button kaas aan dhagsiino waa inuu ku bedelo Ahmed inuu ku bedelo magaca hopefully so click ma shaqeynaa of course waxaan u baahanaa inaan gelino magaca inaan gelino state ka so just let's put change name no we don't want to do that already on sameyna taas state aan gelinayna magaca set name props okay and then halkan markii aan sameynayna change name ka in aan ku bedelno inuu u yeero state kan rabnaa so change name of course app.js kan ka sameyn karnaa state ka inaan u sameyno laakiin muhiimadda waxaa waaye props.change name so props.change name inuu ku bedelo kaasaan rabnaa so laakiin muhiimadda waa fahantay basically waxaa markaan kan dhagsiin inuu kan Ahmed ku bedelo laakiin waa u diri kartaa ma rabi inaan waan sameyn karaa laakiin waxaan diidanayaa inaan ku wareertaan aan diidanaya muhiimadda waxaa waaye function waan diri karnaa inta waxaan sameynaynaa let's say cancel log si aadan ugu wareerin inta magac kale aan gelinaynaa change name called iska dhebo so cancel log markaan ku jirno kana haddana dhag siino kaasa change name called so haddaan inaan magac caadi bedelno waa inaan magacaan state ka gelino waa halkan state gelino kabacdina u yeerno functionkaas laakiin function string waxaa rabtaa uga yeeri kartaa propska wax ka soo qaadanaysaa okay any question okay all right so taas oo isla fahanay let's go back here so waxyaalahaas ay waxyaalaan baranay just componentska maxay yihiin sidee la iskugu xirxiraa componentska iyo sidee loo soo diraa props intaasaan baranay okay wax yaraan waxaan ka taabanaynaa stateka marka stateka muxuu yahay let's touch the stateka marka stateka marka lagu sheegayo waxaa waaye reactor waxay leedahay hab ay u ilaaliso component kasta waxa ku jiro so information ay gelin kartaa componentiga sabsaqadkan hadda iska deynaynaa waxaan rabnaa magacaan namekan inaan gelino state inaan gelino state daarti inaan gelisid variable ay sameynaysaa variablekaas wuxuu la mid yahay dhahaysaa name adiga oo ku jira array bacdina waxaa isticmaalaysaa waxa la set name bacdina inta use state waxa la use state kan waa hook waaye qofkaana garanaynin hook waxay yihiin hook waxa weeye waa functiono yaryar waaye ay react samaysay okay functiono yaryar oo badan oo ay react samaysay waaye oo loogu talagalay in wax lagu bedelo so use state waa mid ka mid ah use kan hadda aragta soo jeeda ayagoo badan waa kuwana case kan ku yaalaan waa use state use effect use context use state kan waxaa loogu talagalay
in lagu ilaaliyo xaaladda ay joogto componentigaada. So xaaladda hadda ay joogto componentiga magaca waa Maxamed. haddaan rabno magacaas Maxamed inaan bedelno magac kale ku bedelno aan isticmaalaynaa function kan la yiraahdo set name aan isticmaalaynaa ku bedelno. So hadda meeshan ka caadi u direyno aan u direynaa name aan direynaa. So application ka isku mid ahaanaysa waxa isma bedelayaan. Hadda refresh dhahno of course qalad yar jiro. import ya react UST import lama soo jeedo error ku sina macnaheedu waxa waa wuxuu leeyahay ma garanayo wuxuu yahay use state kan waxa ka hadlaysa ma garanayo waxaan function kan meesha ka keenta ma garanayo. So waxa u baahan tahay inaad soo jiidato react inaad dhahdid soo dir use state soo dir waa kana react waxaan niri balna si function ka la yiraahdo use state wayna sisay waa kana. So the application ka should work. So عادي وش شقينا function كامل شقينا يا هاي اللي ما بيجرو. So عشان كده إحنا use state كوا حالة ده يجوب توه. and حالة ده وبدل كتا حالة بدل كتا هدارنا إنا بدلنا مقعة and set name كا ما هدارنا بدلنا واحد حدا أسمين إنا سمينا واي أنا جو استعمال إنه set name كاس. So set name كنا عندي كنا so عندي كنا أنت set name is equal to set name function عادي نديرنا واي حقا نوع استعمالك النمر. So profile دان تجنو props كو حكو جرو set name أكو دحجت ساتين تساوي. So أنت كاستعمالك إن حالنا هاي بطن كهذا أنت ترتنا نصير عشاننا أنت حالنا مركو ماشي هالكان أوكي هاي props كو حان أنت حالنا هاي set name sorry set name is equal to حالنا هاي فارح. Okay. كانوا أنا نحن props إن نحن props دا set name فارح. So بدك هذا أكسينه وإنه مقع محمد فارح بدله. Okay. So حنسميني وحنويرني function أو state كأ أو أن أدرني prop أهانا أو أدرني profile. كتبنا waxaan sameynay oo u yeernay on click aan isticmaalnay markii aad u yeeraysid wax oo click ku saabsan markii noqoto react oo inaad callback function aad ka samaysid oo gudihiisa gelisid callback function aan gelin callback function ka wuxuu isticmaalayaa wuxuu u yeerayaa function kan la dhaho set name kana waa waxay react na siisay oo kana waxa rabtaa kun magacaabi kartaa set name ka laakiin inuu magaca set lahaado okay labadan waxa la markay use state ayaa iska leh labadan hal xabo isticmaalka tasaan laakiin magaca waxa ka bedeli kartaa taas isticmaash daartina wax ka bedesho hab kale oo lagu bedelo malaha adoon isticmaal set name kan okay use state marka waa kaasa state lagu sheegaa waa kaasa xaaladda ay joogto waa xaaladda ay joogto waxa Maxamed xaaladii aan bedelnay waxaan ku bedelnay baarax aan ku bedelnay wax su'aal marka noqoto state wuxuu yahay so codka ma maqlay kor qaad weli codkaada iga fog sorry hey waxaa maqlaa un bis mikrofoonka maqlaa dhaqdhaqaaqaya igu soo celi su-aashaada waa maqlaa laakiin mikrofoonka wax tataabanayo oon si fiican yaa igu soo celi okay maxaa ka dhexeeya labadooda okay so set name iyo use state maxaa ka dhexeeya labada use state waa function caadi oo ay samaysay react waa adigoo dhahay camal function ayagaa sameeytan annaga maana sameynin so function qori karo function ma ahan function change name ka sorry
أنا قوني أنت after غلط delete okay so حاليا أنت مركز use example أنا نسينا use state ناي حاليا أنت value set value okay then waxay sameeyeen markaa ayaga saan u sameeyeen marka so value set value set value ga marka waxay ka dhigayaan function kale ka sii dhigayaan so kan function kale waa meel kale ku yaalo waxay sameeyaan markaa so function waa kan caadi sameeyaan function kale banaanka laga sameeynaa la dhaho function set value la dhaho okay so function kale banaanka laga sameeynaya kana loo soo diray inta wuxuu sameeynaya marka information kan la siiyo value-ga ya waxa loo isticmaalaya kan so arrintii oo arrimii callback waaye hadda ka hor ka hadalnay ardayda class ku jirtay waa callback caadi waaye so waa loo yeerayaa inta gudihiisa loogu yeerayaa kabacdi waxaa leedahay set value waxaa leedahay marka value yaa ku baas garanaysaa laakiin waxaa rabtaa ku dari kartaa inta waxaa dhigi kartaa wax ka bedelo waxaasoo dhan لكن reactor sense waxaan waa aadan simple oga dhigay laakiin waa function ay ka sameeyeen use state-ka oo ay siiyeen laba wax oo ah value wuxuu rabo noqon karaa value wuxuu noqon karaa magac wuxuu rabo kadibna waxay dhaheen waxaa isticmaashaa set wax kale labada marka way iswataan macnaheedu waxa waaye kan waxaa lagu bedelaa set value lagu bedelaa marka wax laga bedelaa okay so waa waxay react soo sameeyeen annaga u baahan in wax ka taabano laakiin waa habka lagu bedelo waxa ku dhex jiro component-ga lagu bedelo waa so kabso qaad amal hadda kor waxaan sameeynaa counter-kii aan sameynay counter so counter aan sameynayna kabso qaad let's say amalkan aan dhahno counter aan ku bedelno inta waxaan leenahay counter-ka waxaa weeye nambaradii u bedelayaa oo 1 2 3 ku bedelayaa so let's do this kan aan u dirna marka wuxuu u baahan yahay count set count okay so counter kan waan of course waa bedelna so intaan bedelna magacaan counter intana counter ina ku bedelna okay so counter wuxuu sameynayaa wuxuu na tusayaa sidii wax isku bedeli lahaayeen so counter kana counter ku bedel kas hadda magaca bedelayna ma bedelayno maxaa la dhihi jiray wixii aan u baahnayn so waxaan tirtir ونو سمينايا h2 counter كتبنا ونسينايا بحيان بدل لهن لو بطلنا سمينا مركا منه حواي ويرينا يا نمبر كي منه وينانا نمبر كي so هدي ان حتى فيرنا مركا application كنغا وكذا حنسمينا counter labadan batana sameynay midna uu badinaa midna uu yareenaya okay so xaaladda hadda joogto waxa waaye application ku waa 0 soo jeedo kana xaaladda hadda joogto xaaladda darbina bedelno inaan isticmaalo set count-ga inaan isticmaalo set count-ga marka hadii aan kan kala bixino waa kana waxaan sameynaa button oo on click leh waa sida javascript-ga caadiga barateen on click-as wuxuu sameynayaa wuxuu soo jiidanayaa set count so waxaan dhawaan sii kala bixin karnaa daarno the structure waxa la jiro lagu sii kala bixin karo so ma baanin props ka xan hadda okay so props kana tirtir okay set count-ga wuxuu sameynayaa wuxuu soo qaadayaa xaaladda ay joogto application-ka oo hadda count bacdi wuxuu ka jarayaa hal uu ka jarayaa ama wuxuu sameynaa xaaladda joogto soo qaadaya component-ga hal uu ku darayaa saasaan u haysanaa saan so plus markaan dhahno kaasoo ku darsamaya minus markaan dhahno ka jarmaya okay so way isla shaqeynayaan set count-ga iyo waxaa isla shaqeynayo iyo count-gana isla shaqeynayo use state-ka ayada waxaa waa function noo ilaalinaya meeshii wax joogaan so marna wuxuu fiirinayaa set count inaa isticmaalaysid marna wuxuu fiirinayaa count inaa isticmaalaysid ama count inay xaaladii joogto haddii set count loo yeero oo aad macnaa ugu yeertid function ahaan ugu yeertid wuxuu sameynayaa wuxuu bedelayaa wax ku jiro count ugu bedelayaa saas iskula shaqeeyaan okay wax su'aal kale markay noqoto state
use state waxay tahay okay all right so taas isla fahanay use state-ka waa waxay leedahay function iyo value ay leedahay waa function kan iyo value ama macnaha waxay leedahay function la isticmaalo iyo wax meel lagu kaydiyo leedahay oo variable caadi ah ay leedahay intaas leedahay variable ka caadiga wixiisa intay ku jiraan wakaas inta waa okay taas isla fahanay okay so hadda waxaan sameynaynaa marka application yar oo quick aan sameynaynaa kabacdina waan dhamaystiraynaa insha Allah so waxaan dib noogu celi so let's do a quick application aan sameyno example so kan iska tirtir application aan sameynayna waa sidaan camal ka dhigan tahay let me show you example aan tusaaya say u eg tahay waa kana saan u eg tahay basically waxa application simple ah sida homework-ini u eg tahay sawirri soo bandhigaysaa fresh data dhahdo kaasa halka waxa ay sameynaysaa waxa marka calaamadda heart ku taabatid waxay ku daraysaa numberka ku daraysaa okay that's it that's level so let's quickly make that so waxaan soo jiidanaya CSS-ka marka hore waxaan sameynaa file la dhaho data aan sameynayaa data.js waxaan u baahnay inaan gashanaynaa waa sawiradaas iyo waxaa ku jira iyo waxyaalahaas okay data.js anana waa errorkan usoo baxay export ahna waa yeah export default yeah it's correct okay waxaan kaloo sameynaynaa CSS-ka wax ka bedelaynaa so let's do that so index.css kana gelinayna waxdan ama waxaan gelinaynaa app.css okay app.js ka waxaan gelinaynaa dhowr wax laakiin taa sameynin waxaan sameynaynaa hal component hal folder aan sameynaynaa la dhaho animals folderkaas gudihiisa waxaan gelinaynaa laba component mid la dhaho animals list.js iyo animals card.js waxaana mid kasta xayawaan kasta si gooni ah usoo bandhigno wixiis card.js datada aan soo jiidanaan loop gareynaynaa so hadda waxaan sameynaynaa marka meeshaan counterka waxaan dhanaan iska bixinaynaa import waxaan leenahay animals list waxaan kasoo jiidanaynaa inta ma ahan kasoo jiidanaynaa dot slash components slash animals slash animals slash animals list so wijeeda mar qaarkood kuma ogolaanayo marka adina caadi ku qortid waaye meeshaan aan soo gelinaynaa marka componentigaas simple intaana taas soo gelinin waxaan sameynayaa class-kaan aan bedelayaa meesha hadda uu yahay app bedelaya container kabacdi waxaan gelinayaa h1 kana bedelayaa animals and then gudihiisa waxaan gelinaynaa marka div kale aan sii gelinaya inta oo class namekiisa uu yahay app okay gudihiisana waxaan gelinayaa animals list okay so kan iska tirtirno let's look at the application marka hadda so kasa error noo soo tuuray uu leeyahay expected string class darada okay shakadan shakadan ma garanayo but dib malaha element types invalid expected string inta meesha ka hadlaya use state ka soo baahnaan doonaa dib malaha okay kan I'm not sure why uu u diidan yahay
ما كلام سوكو فكرة نابو. وإي إسلنتو أدمنا. So let's go here. Quick fix. Okay. أدمنا حالنا يا problem كان. So start up سمين كتا. Invalid 12 line 12 class name averages I don't know what the class name averages. Okay, so maybe animals list حو كجرين that's why. So animals list حنسمينا مركا just حو بهنا function simple so RCFE. Hopefully that works out. Okay, looks good. waxaan kale oo sameynaynaa kana animals card sidoo kale RCFE. kana sidoo kale marka animal card waxaan uga dhex yeelaynaa animals list marka datada halkan ku jirto dhan aan soo jiidano waaye waxaan ka soo jiidanaynaa app.js so waxaan leenahay import data from data. Okay, so data halkan ku jirto waaye waxaan sameynaynaa state aan sameynaynaa course already noo sii sameeyo kaasa state so waxaan dhahnay state animals set animals and then use state waxaan siinay datada halkan ka imaanayso. Next maxaa u baahnay inaan sameyno what's the next step xusuusta waxaan rabnaa inaan datadaan u dirno animals list inaan u dirnaa rabnaa. Any questions? Props ahaan ugu direynaa maxaa yeelay datada halkan inagu jirtaa wixii halkan ku jiray oo filekan ku jiray waxay ku jiraan hadda animals ku jiraan so just waxaan u baahanaa inaan u dirno halkan inaan u dirno u baahana si props ahaan so saasaan ugu direynaa animals is equal to animals. Okay, so hadda animals list tagno on props kan soo jiidano console log ku samayn kartaa si aad u hubisid inay wixii jiraan in kale markasta props ka samayso waxa samaysaa console log hadii aad wax ku wareerto wakaas soo baxeen waa animals waa array waaye waa array of objects wixii dhan ku jiro. Okay, and waxaan rabnaa marka halka inaan looping ku sameyno so very simple meesha hadda animals ku qoran tahay waxaan sameynaynaa looping ku sameyno looping ka saa u sameynaa waxaan rabnaa inaan animals aan loop gareyno map aan isticmaalayna map so inta waxaan leenahay waa javascript marka waxaan gelinaynaa calaamadaas wuxuu leeyahay props.animals.map kabacdina waxaan dhan ma sameynayno waxaan u direynaa waxaan u direynaa animal car aan u direynaa wax dhan. Okay, animal car aan u direynaa so let's do that. Animal card kasa okay kan waxaa naga khaldan because waxaan u baahannahay inaan wadan gelino kasa animal card nooma jiro halkan so waxaan u baahannahay inaan soo jiidano kasa animal card waxaan u dirnay laba prop aan u dirnay mid la dhaho key sababtoo ah react markasta waxay u baahan tahay wax la dhaho key micnaheedu waxaa waaye data markii aad list sameynaysid oo list caadi tahay waxay u baahan tahay mid kasta oo si gooni in lagu garto oo DOM-ka uu garto mid gooni ah so waxay u baahan tahay wax la key waa wax unique inuu ahaado waaye marka datadanada waxaa ku jira wax la ID oo mid kasta gooni u ah
so saasan ugu dirnay keygaas laakiin wixii kale oo magacii dhammaan sawirka waxay ku jiraan animal so haddaan tagna inta waxa kuma jiraan haddaan fiirino app-nagii waxa kuma jiraan wuxuu soo bandhigayaa animal card so waxaan u baahannahay inaan inta propska aan soo jiidano kadibna aan tusno xayawaan kasto wixiisii so just waxaan sameynaa qaybta oo let's do it together actually so div-kan aan dhex gelinayna wax kasta okay so marka ugu horeysa div-kan wuxuu u baahan yahay keygu u baahan yahay laakiin intaan taas sameynin let's do destructuring aan sameyno so let's do that also wax kale u baahannahay maxaan kaloo la soo dirnay propska inta ka soo dirnay key aan soo dirnay laba waxaan soo dirnay animal oo halkaana waa kana iyo key aan soo dirnay so inta waxaan u baahannahay inaan gelino key okay so inta marka div-kan waxaa marka waa xayawaan kasta waa halkii xayawaanba so inta waxaan u baahannahay inaan gelino marka keyga key aan gelinayna key caadi is equal to enter okay class aan u baahannahay meeshaan so let's do that class name is equal to animals kadhano horaan u sameeya waxaa CSS kaas marka waan garanayaa sawirka xayawaanka u baahannahay so waxaan leenahay image sourcekiisa uu yahay animal alt namekiisana uu yahay animal name so alt name markasta u baahan tahay haddii kala qalad uu ku keenayo so haddaan alt nameka ka bixino error kuusoo tuuraya waa arrin oo react ah waaye waxaan u baahannahay marka so haddaan fiirino there's sawirada ayaa ku jiro sawirada xayawaanada ku jiro which is good kana geesaan geenaynaa si aan u aragno isbedel ka socda meesha so kana eventually suu ekaan doono waaya okay so hadda waxaan u baahannahay marka inta inaan gelino div kale inaan gelino u baahannahay oon kusoo bandhigayno xayawaanka informationkiisa sida camal magaca iyo waxyaalahaas so hal div aan gelinaynaa div-kan couple of things aan gelinayaa and actually intaan gelinin hal class aan sameynayaa so hal class aan sameynayaa let's go to enter aan ku magacaabo that animal info iska dheh xaalaas aan gelinayaa just waa inline aan geliyo hadda kahor marka just inline kuma jecli display justify content why editing that's CSS saan maahan okay so that's good so animal info gaas u baahna class so div-kan class name animal info just halkan marka waxaan u baahna magac inaan gelino namekii oo kaasa tree ka dhiganta bacdina waxaan u baahanay inaan gelino waxyaalaha kale intaan waxyaalaha kale gelinin walaan soo xirna kan div-kan hadda okay so kaasa so animal name wixii dhan kaasa just waxaan u baahanay marka inaan gelino arrintii heartiga ahaa oo ku jiray taasna waxaa waaye waa click method waaye so click methodkaasna u sameynaa laakiin intaan sameynin let's add aan ku darno sawirkii oo heartiga ahaa oo soo copy garaynaa sawirka so just inta lee ku daraynaa kasa close it okay so heart and then hoosna waxaan u baahanay inaan ku darno integer oo la lahaad gareey so waxaan u baahanay inaan sameyno method oo kaydinayso waxaas so marka hore waxaan gelinaynaa inta okay so it should be good waxaana ka maqan oo dhinaca CSS-ka sigaan fiiri dib u fiiriyo animals waxaa naga maqan qaybta image-ka waxaa ka maqan hal paragraph ka maqan oo some CSS leh
so qaybtan image ka wax ka maqan yihiin so inta aan gelino that's so that one is that and I'm not sure why u diidayo dhib malaha I think waa qaybtan kore waaye app.js ka waaye wax ka maqan yihiin ama I think wuxuu yahay animals list no animals list is good app.js waa container iyo app labadaas ku jira I'm not sure what diiday marka Shadow link CSS so important grace link CSS ka ha so wuxuu ku jira inta waa kana inta ku jira so parent ku jira parent component ga waa kana so uma baahna inaan kuwa kala sii gelino maxaa yeelay kuwan wuxuu kusoo hoos jiraan parent ga kusoo hoos jiraan so only thing waxaa waaye inta in aan iska fiirino kan uma baahnin just this one can I see animals me horta let me double check class name or animals yala kan let's go okay well all right dimala muhiimada waxa just in aragtan okay so hadda marka heart markan aan ma shaqeynayo so waxaan u baahnaa inaan sameeyno method aan ku sameeyno taas so waxaan u baahnaa inta inaan ka sameeyno animal car waxaan ka sameeynaa state kan wuxuu kaydinayaa wixii hearts ku kaydinaya so let's call it oo magacaawna hearts wuxuu kaydinaya marka hearts xaaladiisana waxaa waaye heart already jiro waaye waa inta jeer oo heart oo jirto waaye okay so inta use state aan u baahannahay okay so should work hada so there's ma shaqeynaa micnaankooda laakiin waa haysanaa xaaladda waa haysanaa tana just waxaan u baahannahay hadda marka inaan buttonkan ama meeshaan calaamadda heartkan inaan gelino on click method so halkan on click aan gelinayna kaasa and then waxaan leenahay heart plus heart so haddaan click siino it should work no it's not working yaa ii sheegi kara sababtan u shaqeynaynin image-kaad gelisay maaha image-kaan geliye laakiin taas caadi waaye image-ka waa inaan dhag siino micnaha heartiga laakiin meeshaan numberka isma bedelaya sababta isku bedelaya ii sheegi karo meeshaan line 20 fiiri maxaa ka bedelan markaa fiirsa line 20 line 20 waxaa ku jira xaaladii hore halkaa ku jirtay intaa ku jirta laakiin haddaan inaan bedelno waa inaan kan gelino waa maxaa yeelay halkaan waa waxaan ka bedelayna so heartigan u baahnay inaan u yeelno meesha ugu yeeri lahayn animal.hearts so hadda xaaladii hore ku jiraa laakiin markaan dhag siino wuxuu ku darayaa maxaa yeelay waxaa maamulaya waxaa use state-kan wax maamulaya wuxuu soo qaadanaya wixii horey oo jiray marka wuxuu leeyahay haddaa u yeertid function-kan oo halkaan ah oo kana on click-aan gelinay oo hal ku dartay plus ku dartay markaa bedeshid halkan ka soo bandhigu leeyahay kanaan soo bandhigaynaa okay so that's it xogaa yaro CSS ka maqan meesha badhi malaha waa fahanteen muhiimadda any wax su'aal ah hadda u sameeyna waxaas any question so homework-na saas camal waaye so assignment-ga idiin sheegaya waa taas camal so hadda waxaan sameynaynaa haddii su'aal jirin assignment-gaan sameynaynaa laakiin ma dhamaystirayna just waan soo jiidanayaa waxaan rabaa inaan tuso ardayda aan horay u arkin sidii loo soo jiitay waxaas inay arkaan basaan rabaa so assignment-ga just waxaad tegeysaa meesha halkaanaan tegeysaa log out igu sameynaya no so assignment-ga tegeysaa meeshaanaad dhagsiinaysaa Instagram clone inta waa kana intii ku jirtaa marka ugu horeysa fork leedahay intaad wax kala sameynin calaamadda fork taabanaysaa fork markaan taabano aniga waxaan dooranaa magacayga asa fork create fork copy ku siinayaa oo adig gooni ku ah
هدي كلا وقلت بدن كسينا دي هذا fork one نري next step ها clone so كان clone كان ليكو بجرينسا أما لينكي كان بيتو كذا تيجي سا terminal كسوفرنسا let's see أنت نقول جرو we can react insta Halisa ka colon dhahday hammer go back to the colon clone ka kula هي meesha ay ku qoran tahay koodka taawal mar كور كتابنا HTTP base ka joogta you have to come back to GitHub soma GitHub CLI CLI بان GitHub CLI HTTPS كان وبانته GitHub CLI waxaa computer ka haduu GitHub CLI ku jiro bana soo shubato xawla GitHub CLI ina soo shubato dadka inta badan ugu ma jiro GitHub waxay leedahay terminal gooni ayadu ah ay leedahay so ana ka soo shubato laakiin hadaa is terminal caadi ah sida amal git bash ama hadaa Mac computer isitid kana terminalka waxa baanta HTTP kana baanta HTTPS good to know okay so copy leedahay then waxa tagaysaa terminalkaada noqon kara git bash wuxuu rabo waa ina meel gooni aad tagtid ana hadda waxaan ku jiraa week 9 laakiin daarti ina bedeshid meeshan waxa dhigi kartaa cd wax kala sii dhexgeli kartaa cd waa change directory dib aad u laabto cd.dat dib aan u laabtay cd week 9 waan galay waxaan leenahay git clone aan ku paste garaynayna waxaan soo copy garaynay oo ah meeshii so and then enter leedahay clone inuu ku sameeynaya so error haduu ku soo saarin then you good so done haduu ku dhameeyay haay uu ku copy gareey hadda inta tagno waa kana marka inta ku jira waa kana week 9 react instagram clone kana waxa ku furaysaa marka terminalkaada daartida soo jiidi kartaa waxa ku furi kartaa editorkaadan ka wada ama waxa sameyn kartaa waxa ka furi kartaa terminalka daartida laakiin let's do that ama aan ku furno caadi aan soo jiidno furno kasa waa noo furmay intaadan wax kala sameynin waxaa sameynaysaa terminalka soo furanaysaa kadib waa inaa hubisid inaad ku jirtid meeshaan soo jeedid waa inuu folderka magaciisa halkan ka soo baxa ama projectiga magaciisa intuu inta ka soo baxa kadib waxaa leedahay npm install waxaa kaloo sameyn kartaa npm install waxaa kaloo sameyn kartaa yarn install laba nooca jiro habna yarn waaye habna waa npm so midka adiga haystid aad ku sameyn kartaa qof wuxuu yiri marka git hab commit ma shaqeynaa so waan gaaraynaa commitka insha Allah xirso so halena npm install aan leeyahay npm haysta meeshaan dad qaarkood error waxa soo baxo ay la soo socodsiin kartaa sawir ka soo qaadi kartaa laakiin waa inuu caadi kugu shaqeysaan hadaa ku jirtid VPN waxyaalahaas waa iska ilaalin kartaa VPN-ka error haduu ku keeno haduu error inta ka soo baxo Google la geli qaad errorka laftirkiisa Google geli bal fiiri dad horay waxaan u arkay ama dib u keenay fiiri internet slow hadaa leedahay cabaar qaadanaysa baashaan so iska dul qaado yana xogaa ka qatarsan markay noqoto npm-ka so yarn hadaad soo install garaysan kartid soo gare so markuu dhameeyo ujeedo wuxuu sameeyay file la dhaho node modules iyo file la dhaho sameynaya package lock.json laba file sameynaya so package lock.json so macnaheedu uu dhameeyo waa hadda so markuu dhameeyo waxaad dhigi kartaa npm start uu furaya marka of course mid ever no furaya samaynaa because project lagama shaqeynin so open empty folder which is good so sanad ku soo saaro waa khair then markaas waxa sameynaysaa shaqada bilaabaysaa marka so instructions ka raacaysaa waxa aadaysaa meeshii GitHub ku laabanaysaa waxa fiirinaysaa okay let's see bal meesha wax la dhahay instructions ka waa kana instruction ku qoran waxyaalahan hadda sameynayna waa kuwan steps ka hadda raacnay ilaa iyo hadda intaana raacnay intaana dhameynay soo jeedid waxay dhan steps ka meesha in ku soo wada qoran so intaas raacnay next step waxa ina branch sameyno so taasaan iloobay so let's do branch and sameyno halada git so how I waan ku qoran meesha kana git checkout b ka bacdi magacaada gelinaysaa so git checkout b run ali that's it good so taasaan sameynay steps kaas
mid ku dambaysan waxaa markii aan isbedelka dhamaystirno inaan soo dirno wixii. Okay, so hadda isbedel yaraan sameynaynaa. So let's go to app.js. waxaan leenahay waxaan instructions kan maraan midda kale instructions ka meesha waxaan kugu soo qor Soomaali iyo English labadaba soo jeedid inta badan oo isku dayayna insha Allah inaan ku soo qoro. So waa kan asos English asos Soomaali isaga oo English iyo asaga Soomaali English Soomaali. Okay, so mid kasta so haddii Englishka uu ku shaqeynaynin Soomaaliga isku day. Just inta waxaan sameynaa just h2 la gelinayna. Welcome to my Instagram. Okay, that's it. So that's it. Okay, so no so baxay intaas sameynaya. Then now isbedelan sameeyay meeshaan ka arkaysa isbedelka daahistid VS Code. So inta waxaan leenahay git status oo dhigi kartaa aad ku ogaanaysa isbedelka dhacay soo jeedid waxyaalaha isbedelu leeyahay app.js wax ka bedeshay. So next step waxaan leenahay git add dot macna isbedeladan sameeyna ku dar systemka. Then waxaan leenahay git commit -m inta waxaan leenahay waxaan ku daray welcome. Okay, commitka macnaha waa wax sharaxaya waxa sameysay. And then the last step waxa waa git push. Git push kuma waa ina magaciisa geliso branch ina geliso. Git push u origin run ale branch exactly si u qorreed ina geliso. Hadaa garanayni branchiga waxaad dhigi kartaa inta git branches dhigi kartaa ama git branch aan godaa. Okay, branches ku jiro ku soo bixinaa kaasa. So midaan waxa mid aniga aan ku jiro. So git leenahay push u origin run. Okay, that's it. So now steps ka raacdo waa ku shaqeeyo. Hadduu ku shaqeynin error-ka ay soo diraysaa ama ku shaqeynin. So hadda ku laabano GitHub meesha qoraxa ka soo baxaya boom wuxuu leeyahay isbedel sameysay uu pull request sameynaysa meesha marka. So let's create a pull request. Inta waxa ku bedelaysaa magacaada. So meeshan base repository dhahayo magacaada ku bedelaysaa. So meesha Duran Ali. So hubi inaadan ku bedelin magaca meesha. Okay, now inta bas markaa samayso create pull request and that's it. Inta markaa samayso soo diraysaa marka projectiga. So linkigan camal ku bigrayn kartaa waa ii soo diraysaa assignment ahaan. Okay, intaas oo marka soo diraayo assignmentiga. Let's see. Start GitHub. Okay, GitHub markaan dhaho commit wuxuu dhahayaa nothing to commit. Nothing to commit hadduu dhahay micnaheedu waxaa waaye isbedel markaa samaysay git add dot maadan dhihin. So maybe taasaa ka booday. Nothing to commit micnaheedu waxaa ka wadaa isbedel maadan sameynin. Haddaadan weligaa aadan dhihin git add dot ma garanayo waxaa bedeshay. Git add dot inaad dhahdaa marka hore. Yarn React ma lagu isticmaali karaa? Yes, yarn waa sida npm camal waaye soo isticmaali kartaa. Ha npm and yarn labo loogu talagalay package. Yep. Homework week 10 ma aha mis kii hore aan ka shaqeynay waaye. Kii hore waa homework week 9 oo homework aan example ka soo qaatay soo jirta magaca ku qoran week 9. Okay. My homework weli ma nagaarin week 10. Week 10 casharka weli ma qaadanin. So haddii aad week 9 aad ka shaqeysay, so let's go back and ku laabana meesha. Week what is it? Week 9 aan ku jirnaa kana. Week 9 aan ku jirnaa. Week 10 hadda ka shaqeysay week 9, week 10 aad ka shaqeyn kartid ka shaqeyn dartid, laakiin weli ma qaadan week 10. Okay? So week 10 waa isbuuc baan qaadanayna. Kas arday badan ay ku istaagtay week 9 ka waan iska garan karaa maxaa yeelay ardayda markasta oo wax ku cusub yihiin way iska adatay. Laakiin marka la qabsatid arrimahan oo la soo diraayo casharka errorskan jini waxaan ka baxan wax kale oo xoog saaris markaas waxa waay assignmentiga bas. Marka ugu horeyso waxaan arkay arday badan oo ugu horeyso errors wax soo baxaan baad markay xaliyaan arrintaas casharka soo socdo
حوق وحيساران بس إن 10 شقيان so دي مرة إن شاء الله we'll take another week لان قاعدين هنا سيقف كسو حيس وصدره يعني واحد سؤاله أستاذ waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii iconiska waxa la soo xawilinaya component lagu sameeyo iconiska taa wax yartaabtid so icons ki waxaas waxaan xooga saarayna waxaa jiro 10 dhan oon ka hadlayno week 10 week 11 waxaan ka hadlaynaa styling halkana week 11 waxaan ka hadlaynaa stylingka micnaheedu waxaa waaye sida loo soo geliyo icons waxaan isticmaalaynaa tailwind wax kalada css waxaas oo dhan haddaad si gooniya waan kugu soo diri karaa laakiin hadda micnaha ma ahan 10ka aan xooga saarayno dhinaca qurxinta waxyaalahaas laakiin waxaa isticmaal kartaa sawir caadi sida haddaa in tusaayo oo 10kii animalska sida animalska soo jeeda waxaa isticmaalay sawir caadi aan isticmaalay meeshaan ka gelin lahaa where is it okay so heartga waxaa isticmaalay just picture yar oo online ka soo qaata isticmaalay soo jeeda so hadda for now iska isticmaal waxyaalahaas icons dartina sameyso gooniya waxaa u baahan tahay inaad soo jiidato habab kala duwan oo loo soo jiidan karaa waxaa jiro material UI wax la dhaho iyo waxyaalo kale bootstrap isticmaali kartaa iyo waxaa jiro library loogu talagalay iconska so haddaad raadsid react icons waa helaysaa this package badan waxaa jiro loogu talagalay carada ka badan yihiin kuwana soo jiidan kartaa soo jeeda import aa leedahay icon dara sadan wax su'aalaha so hopefully hadda qof kastoo inta ku jiro oonan hore uga shaqeyn assignmentiga wuu ka shaqeyn karaa dib ugu laaban kartaa cashirkan darteed insha allah midda kale waxaan rabay inaan ka hadlo waxaa waaye markay noqoto markii laga shaqeynaa assignmentiga dad waxaa jiro qof kasta ma laakiin dad waxaa jiro maalinta ugu dambeysa xoog saaraya ama waxa laga yaabaa inaynan taabanin isbuuca dhan maalinta ugu dambeysa taabanaya taasna in la iska ilaaliyo waaye insha allah isbuuca dambe si fiican uga hadlaya laakiin fadlan markii haddii wax kugu taagan yihiin waa inaad ugu yaraan isniinta laga yaabaa inaadan macnaha aad u fiirinin laakiin aad akhrisid wax laakiin talaadada waxaa la rabaa inaad ila soo xiriirtid so haddii kaba soo qaad aad jimcaha ila soo xiriirtid dhahdi maba micnaha weli ma soo shubanin xataa projectigii ama assignmentigii then taas dhib weyn waayo marka micnaha sababta dib ugu dhacaysa maxaa yeelay hore umaada fiirininba hore umaa soo shuban waxaa laga rabaa marka isniintii talaadada camal inaad soo shubato projectiga oo computerkaada kugu jiro inaad wax ka hagaajisay jimcada waxaa la rabaa markii la gaaro in wax yaryari kugu taagan yihiin waxaa laga yaabaa sida clickga loo sameeyo oo click methodkan inay ku shaqaynaynin wax yariisa oo ka halaysan yihiin waa iska okay waa garan karaa laakiin haddaadanba waxba taabanin ilaa jimcaha then taas dhib weyn waaye meeshaan waxaa dad waaweyn aan nahay marka qof kasta inuu mas-uuliyad isa saaro waayo haddii la yiraahdo so insha allah soo dira assignmentiga kadibna insha allah asbuuca dambana waxaa bilaabana 10 cusub dadaalaan la idinka rabaa insha allah soo dadaala intaasaan ku ekeysiina insha allah khayr idin rajeyna السلام عليكم